iyadoo beryahanba ay komishanka maamul wanaagu ay ku guda jireen baaris iyo maamul toosin iyo dardargelin ayaa maanta waxay u kala baxayaan 6 gobol ee dalka oo ay ka soo fulin doonaan baaris maamul toosin iyo dardargelin isugu jirta taas oo ay ku fulinayaan dawladaha hoose iyo kastamada hawlgalkan ay fulinayaan guddiga maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqu waxay u sameyn doonaan dhammaan xarumaha dawladda ee heer gobol iyo heer degmo waxaana ugu horeyn ujeedada si oo faahfaahsan sharaxaad ka bixiyay gudoomiye ku-xigeenka maamul wanaaga mudane Mukhtaar Yaasin Cali maanta ay bishii tahay 12 bishii 9aad 2017 waxaan u baxaynaa hadii ilaahay idmo safar dhinaca bariga iyo dhinaca galbeedka labada tiim ee kala baxaya oo dhinaca bariga aadayo gudoomiye Axmed Jaamac Maxamuud dhinaca bariga aadayo anigoo gudoomiye ku-xigeenka Mukhtaar Yaasin waxay ku saleysan tahay inaanu baadhno soo ogaano habsami u socodka hawlaha qaranka ay u hayaan dawladaha hoose kastamada iyo waxyaalaha la xiriira insha Allah waxaan rajaynaynaa tiimkan bariga aadaya ee gudoomiyihii wato inay maanta baxaan oo 12 bisha tiimka anigu wato oo dhinaca galbeedka aadayana ay baxaan sabtida subaxii hadii ilaahay idmo waxay ku saleysan tahay arrinta ugu muhiimsan ay tahay sida loo wada socotaanba dawladdan uu garwadeen ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayi waxay muhiimad weyn saartaa inay maamul daadejin samayso inay tuulo walba degmo walba gobol walba ay maamulkeedu dhisan yahay saxan yahay annaguna taas ayaan ku qayb qaadanaynaa hawluhu waa sida waxaan rajaynaynaa degmooyinka gobolada kastamada aan u tagayno mas'uuliyintoodu inay shaqaalaha si fiican ula shaqeeyaan waxaanu gudaynaa waa hawshan qaranka u haynay oo wax iyaga ay dan ugu jirto wax anaga ay dan ugu jirto waxay ummadda oo dan ugu jirto way marka waxaan rajaynaynaa oo si fiican u rajaynaynaa kana codsaynaa inay la shaqeeyaan mas'uuliyiinta ka socota komishanka ay u imanaya meesha doonaan baa joogeen dhankiisa kalena gudoomiyaha guddiga maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa mudane Axmed Jaamac Maxamuud waxa uu sharaxaad ka bixiyay qaabka loo fulinayo hawlgalkan oo ah mid ka mid ah hawlaha qaranka ee uu guddigani u xilsaaran yahay safarku uu ballaaran yahay oo wuxuu noqonayaa galbeedka Soomaaliland iyo bariga Soomaaliland oo aanu shax u dhignay shaxda aanu u dhignayna waa shax shaqo oo ma garanaysaa gobol waxaan ka soo bilaabi doonaa shaqada hadii ilaahay ka dhigo degmada Ceerigaabo ayaan ka soo bilaabi doonaa galabta insha Allah rajaynayo in safarka iyagu bilaabi doono shaqada aanu bilownay ma aha wax cusub oo aanu imika create garaynay waa shaqo komishanka qaranka u hayay waa shaqo dardargelinteedii aanu imika anagu bilownay waxaanu soo rajis garayn doonaa asadka degmo waliba yaala ee ay leedahay qaranku leeyahay waanu u soo rajis garayn doonaa maamulkana sida uu shaqeynaya dawladaha hoose iyo customerska cashuuraha qaada kuwaana waanu soo dardargelin doonaa oo wixii ka dhimanna waanu ku soo insha Allah waanu soo qori doonaa wixii aanu soo sixi karnayna waanu soo saxaynaa hadii ilaahay ka dhigo waxa kale oo aan fursadan doonayay safarka aan kaga faa'iideysto saxaafadan aan qabanayno waxa aanu bedelay loogadii ama astaantii uu komishanku u taagnaa astaantaas oo ka turjumi doonta micnaha komishanku u taagayay astaantii hore ee komishanku lahaa waxa markii aan daraasad ku sameynay noo soo baxday in aynan ka turjumayn astaanta komishanku u taagnaa ama micnaha uu ugu fadhiyay qaranka taas oo aanu maanta iyadana aan fursadan kaga faa'iideysan doono aan shaacinayo waxa kale oo la socda astaanta website-kii komishanku lahaa oo isaguna aan hore website u jirin ama uu fadhiyay website-ka hore marka website cusub oo ayaan u furnay komishanka emailkiisii wata dadweynuhuna ay nagala soo xiriiri karaan wixii cabashooyina ama talooyina ama tusaalooyinana ay emailkan ugu soo hagaajin doonaan hadii ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa wada shaqayn wanaagsan inaanu kala kulmi doono gobolada aanu tagi doono haday noqoto muxuu ahaa madaxda gobolada joogta aanu tagi doono iyo anaga oo runtii jecel in dadweynuhuna nagala soo xiriiro emailkaas wixii taliye tusaale aba aanu runtii jecel lahayn halka nagala soo xiriiraan gudoomiye ku weydiiyo waxa weey hore waxa u sameeyeen inaad wasaaradaha dawladda qaarkood aad ugu tagtaan baarisiyo
imikana haddana idinkoontii hore waxa ka soo saareen waxaa u gudbaysaan gobollada dalka bal markaa maxaa qorshihiinu yahay waa runtaa oo dee baadhiso hore waanu samaynay 10 wasaaradood baanu ku samaynay 10ka wasaaradood dee keligood maaha waxaanu baaraynaa imika goboladan anaga hadda u baxayno 6 gobol oo waaweyn baanu tegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo kastamadaanu tegi doonaa wasaaradaan noo hadhayo shaqadayadu dee way socon doontaa markaa report dhammaystiran oo aan dee markaanu dhammayno shaqadayada wada dhammayn report dhammaystiran oo ka turjumaya wixii aanu dee ku soo aragnay ayaanu soo saari doonaa reportkaanu soo saarayno madaxweynahana waanu u gudbin doonaa wixii dadweynaha lagala sheergarayn karayo ama la shaacin karayana waanu shaacin doonaa oo maalin ayaanu dee saxaafadda isugu soo yeedhi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan kaloo ka codsanayaa dhammaan mas-uuliyiinta qaranka ee dee u xil saaran hadday wasaarada ahaato iyo hadday ahaataba muxuu ahaa dowladaha hoose ee qaranka xilka weyn u haysa maadaama waqti kala guura lagu jiro dee in dowladnimadu dee inay maalin keliya iyo foodku inoo dhici doonaa dowlad cusub baa inoo dhalan doonta in dowladnimadu dee ay socoto oo aynan habaacsanaan dee aynan inaga noqono nin waliba unan isodhan waa la foodayaa oo dee dowlad cusub baa imanaysa dee saa doonta ka yeel marka waxaan ka codsanayaa dhammaan mas-uuliyiinta qaranka in dee xilkii ay u hayeen iyo shaqadii la hayay ay sideedii usii socoto oo nin waliba waajib ay ku tahay inuu dee dardargeliyo xil iska saaro inayna shaqadu habaacsanaan inaga noqon